نبى النبي يقول دول حجري ندل كي قدونا يهدو يمادو وحي قدونا يهدو يمادو محن كي يلا هالشين هدو إلى الدجال مكورنا لا الدجالن هدو يدير محن سوا في النار أدونا في الجنات هاي وحوين وحان الله يبان الله صوت دون تي جيسياش أكو دجال ما يا دولة شرفتها كل كشناد قرب جوكتة وحول بقو باقي سي وحي نريديسا ما تقرسن هاي kulanti habboon akhyaarta hawada naga daawanaysay waxaad ku soo dhawaataan shir jaraa'id oo uu maanta ka dhacay hoteelka Triangle ee magaalada Diridhabe kaasi ay qabteen odayaha magaalada Diridhabe isla markaasina ay ku taageerayeen xukuumadda deegaanka iyo sidoo kale ciidamada jiidda hore ku jiray ee difaaca deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaam ala sayyidina muhammad ashrafil khalq sayyidil mursaliin ala alihi wa sahbihi ajma'iin marka ugu horeysa dowladda deegaanka Soomaalida iyo ciidankaba aad baan ugu mahadnaqayaa saydalkooga iyo dadkooga ugu soo jeedaan maanta Soomaalimo dulum baa lagu wadaa dulumkana ilaahay marna ma taageero kaas waxaan leeyahay madaxweynaha iyo kaabineyga iyo ciidankaba hawsha inay xagga ka sii wadaan maanta Soomaali dhulka ma kala laha meel kasta oo deegaanka Soomaaliya waa loo dileeyahay oo midna ma dul qaadanayo in dhulkeega la taabto kuwaas dagaal ku jira iyo annaguba waanu dhimanaynaa dhulkeega kaas ciidankaas halgan ku jira inuu halgankiisa xagga ka sii wado yaan ku taageerayaa oo ku dhiirigelinayaa dowladda Soomaaliyeed inay xagga ka sii wado ummadda kale oo Soomaaliyeedna inay garab gasho hanti iyo naf iyo wax walba in lagu garab galo yaan ugu baaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina mawlana muhammad waxa weeyaan haddii ilaahay yidhaaho waxaan nahay Diridhabe iyo gobolka City haddaan nahay ciidanka iyo dawladda deegaanka waan taageersanahay dalkooga iyo dadkooga daafacaya waan taageersanahay iyo hooba wala garab joognaa ya haddii ilaahayna guusha iyaga xasiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waan taageersanahay dawladayada iyo ciidankayaga iyo ummadda dadka u shaqeynaya ragga u shaqeynaya waan taageersanahay taageerada dabadeedna hooba la garab joognaa ducana oo ku daraynaa waxaan ka reebanayni ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim khayr allah nasiya sharna allah naga mariyo haq wixii aan wadanka ku lahayn allah naga siiya waxaan u baaqaynaa dawladda sharafta leh ee Soomaaliyeed kaliya shanaad inta xukumaysa ciidamada geesiyaasha ee liyuga ee Soomaaliyeed intaba waan taageersanahay waxaan baaqa u jeedinaynaa boqolkiiba boqol haddaan nahay odayaasha Diridhabe ee City haddaan nahay waan garab joognaa waxaan ugu baaqaynaa maanta Itoobiya dhul ma soormayso nin walba wuxuu lahaa gadheer booq iyo qaatay nibba nabiga uu wuxuu yiri nin dhulkayga doonaya hadduu yimaado waxay doonaya hadduu yimaado maxan ka yeelaa hasiin hadduu ila dagaalamo ka waran la dagaalan hadduu idila maxan sawa fi النار aduguna fil jannaat tahay waxa weeyin wixii aan lahayn baan loo soo doontay geesiyaasha ku dagaalamaya iyo dawladda sharafta kale ka shanaad ee garab joogtay wax walba ugu baaqaysay wixii nariideysa waan taageersanahay Soomaali weyn dhamaanteeda meeshay doontahay joogtay nin walba halka uu eegayaa dhamaanteed Soomaali weyn iyo kale ka shanaad Soomaali meesha doontahay joogtay waan taageersanahay fikirka iyo dhibaatadalka maqan dawladda jooga kameel ka soo jooga uu taageersay halka uu ka walwalayaa wixii naarta Allah na siiya haq wixii wax kala ma doonay waxaan lahayn Allah na siiya inta waxaan ugu baaqaynaa garabkiina Allah gale hana garab joog walaalahay markuu dagaalamay halgamay hal garab joogsado dadka deegaanka yaala magaca sheeganay Soomaalida ee degmada yaala odayaarday tahay inama haday tahayba ragga inay garab joogaan hameen iyo daraarba iyo hoo inay garab joogaan baan ugu baaqaynaa ayagana degmada deegaanka yaala nin walba Ilaahay meel buu dhigay
reerka meesha maanta la jooga ee loo dagaalamayo la ridayo bilan iyo beledkii aan lahayn cundhufa galmeel cadayto wixii Allah na siiyo wax canfareed ma doonayno ragga canfareed ee gaal iyo islaam midba aan ahayn waxay ku dagaalamayaan la garanayn ragga maanta dhibaatadii nafsi anagu Soomaali haddaan nahay waxaan dhalanay ayaamaha leeyahay maxaan ku dhahay waxaan dhalanay guusha kol walba guusha qaataan yaan dhalno iyo Soomaalidu dhalatay ragga halka maanta Tigreal oranaya halka dhibaato maanta ay ku haysato nafsiga ay naga galeen Ethiopia ne walba hashuulaha markuu Soomaaliya soo calaamaystay dib damba wixii nin qaaday raggaas wasi nafsiga u helay waxa weeye ka dambe maanta nafsiga naga galay maasha ku doona ahaadee hadday shicibtay hadday dawlad tahayba nafsiga ay u helaya geesiyaashii horta wixii halka ku dhintayna Allah shiid uga dhigo oo Allah u naxariista kuwa dhintay halka ku dhintayna kuwa nool Ilaahay ha garab galo kala dagaalamayana xabadooda biyo Allah ka dhiga kuwa maxaan ku anagu xaqaygaan ku dagaalamayna shiid ba ku dhiilaysiina Allah na garab gala kuwa u talay dawladda kaliya ka shanaadna ee aabayaasha ee talaya dawladda maamulayana ee Mustafa Umar ugu horeeyana Allah garab gala haba ka biqin wixii wax kale loo doon wixii loo rida baan garab joognaa hiyooba waxaan igu baaqaynaa Ilaahay garabkiina ha galo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan baaq taageero uga direynaa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo u horeeyo madaxweynaha Mustafa Maxamed Umar iyo Ibrahim madaxweyne ku xigeenka iyo kaabineyga deegaanka iyo dhammaan ciidamada geesiyaasha ciidooda iyo dadkooga iyo dalkooga u dhimanaya waxaan la garab taaganahay haddaan nahay anagu odayaashii Diridhabe iyo odayaashii gobolka City taageero aan hagar la'aan ayaan la garab joognaa har iyo habeen waxaan leenahay guusha waan gaarnay halka laga sii wado garabkiinana taaganahay haddaan nahay odayaashii Diridhabe iyo gobolka City hili hoona waan la garab taaganahay waxaan ku faraxnay qaabka hawsha u gasheen haddii ma taqaanaa haddaan dhammaan shacabku wuxuu taageero buuxda oo aan hagarasho lahayn uu nila garab taagan yahay qaabkaad hawsha u bilowdeen sidaad u wadeen inaad ku sii adkaysaan garabkiinana waan taaganahay taas halkaasaan baaqa kaga baxaya taageerada waxa kale oo halkan inaan u jawaabo aan jecelahay laba oday oo canfar ah Ali Umar iyo Xasan Maxamed labada oday kolkay hadlayaan waa odayaal waaweyn waxay leeyihiin waxaan nahay dad muslimiin ah waa dadkii maatada ku laayay saddexda magaalo maatada dadkii ku laayay haweenka caruurta dadka maaragtay birmageedida oday waxa ku jira 120 sano jiray ayay gowraceen bilayeen 130 jiray ayay bireeyeen maantana wuxuu la soo taagan yahay dad muslimaan nahay Soomaaliya canfar waa walaalo waa sax dad muslimaan warna walaalaanahay laakiin waxa ay sameeyaan ficilkay ku dhaqmayaan ficil muslimnimo maaha ficil muslimnimo maaha mid labaad waxa weey wuxuu leeyahay ma taqaanaa Soomaaliya ogaadeenow daris manhiine maxaad adigu halkan ugu dhimanaysaa ogaadeen waa Soomaalide ogaadeen waa Soomaali aanu ila dhashay waa Soomaali ogaadeen Ciise Isaaq dhammaan wixii Soomaali waa Soomaali cafarna waa cafar marka waxa weey inuu xaarku ka dhamaanin Ali Umarow adkayso wali la isma gaarin adkayso xaarku yuna ka dhamaanin wixii aad sameysana waad ogtahay meydkii haweenka iyo caruurta aad uleeynaysay wali nafsigooda kuma soo gaarin adkayso waa la soo gaari doonaa waxba wali la isma gaarin midda aad leedahay asxaabtii baan anigu soo dhaweeyay asxaabtii waa ku aasan nin asxaabi ay ku aasan tahay dhulkiisa hadaad tahay dhul uu lahayd dadku balaayeen maalin Ramadaan xitaa dad ma laayeen waqti Ramadaan bir Ramadaan dad ma laayeen marka waxaan leeyahay mireetaad ku dhalato xalaal ma tihide nin mireeta ku dhashay maadaama aad xalaal ku dhalanin waxaan leeyahay leesma gaarine in yar baa ku hadhay xaarkuna inuu ka dhamaan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh